بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال meel kasto dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Kuurgal ee Puntland TV oo toddobaadkii baan mar idin ka soo baahino xarunta ku leenahay Garowe toddobaadkan barnaamijka waxa idin soo jeedin doona anigu maxamed xaliye waxaanu nooga hadli doonaa hawlaha ay qabtaan guddiga dhaqaatiirta xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland iyo guud ahaan hawlaha shaqo ee wasaaradda xanaanada xoolaha waxa garabkayga fadhiya oo haatan ila jooga Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo kamid ah xubinka guddiga dhaqaatiirta sidoo kalena ah agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha dawladda Puntland agaasima marka hore ku soo dhawow Puntland TV iyo barnaamijka Kuurgal bismillaahir rahmaanir rahiim warahmatullahi wabarakatuh aad baan soo dhawahay waana salaamaya telefishinka dawladda Puntland waa maasantahay agaasime waxa sharaxaad kooban naga siisaa hawlaha guddiga dhaqaatiirta ee xanaanada xoolaha ee Puntland xilliga la asaasay iyo waxyaabaha guddigaas ay qabtaan guddiga dhaqaatiirta ee xanaanada xoolaha waxaa la asaasay 2007 wuxuu ka kooban yahay 7 xubnood gudoomiyaha guddiga iyo 6 xubnood oo kaleeto 3 kamid ah waxaa doorta golaha ururka dhaqaatiirta xoolaha ee Bulba gudoomiyaha iyo 2 xubnood hal xubinna waa joogto oo agaasimaha waaxda caafimaadka xoolaha 2 xubnood waxay ka yimaadaan shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha xubinna waa xubin sharaf baa la yiraahdaa xubin waxaa isna magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha oo laga soo doortay aqoon-yahanada xanaanada xoolaha ama cid kastoo aqoon u leh xoolaha iyo ama cid kastoo aqoon-yahana 7 xubnood ay ka kooban yihiin shaqadooduna waxaa weeye ilaalinta anshaxa dhaqaatiirta xanaanada xoolaha dabagalka ansixinta dhaqaatiirta xanaanada xoolaha oo ninka markuu dhakhtar soo sheegto uu yimaado wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha waxay u gudbinaysaa guddiga dhaqaatiirta guddiga dhaqaatiirtu waxay ka qaataan dokumentiyada iyo wixii uu la yimid baaritaan bay ku sameeyaan markay u caddaato guddiga inuu yahay ninkaas waxa uu sheeganay professionka uu sheeganay iyo wixii uu soo gudbinayaan wasaaradda xanaanada xoolaha sidaasuu kaga howlgelayaa cilmigii uu soo martay wasaaradda xanaanada xoolaha kii markaa la ansixiyo oo shaqadiisa guta waa walan good kii shaqo xumo la yimaada ama anshax xumo la yimaada oo dhakhtar ah waxaa guddigu awood u leeyahay inay kala noqdaan aqoonsigii ruqsadii ay siiyaan waxaa kaloo guddigu iyaguna ay mas-uul ka yihiin farmashiyaasha meesha uu ku yaallo cidda farmashiyaha mas-uulka ka ah qofkaasi ma yahay qof dhakhtar xanaanada xoolaha ama aqoon u leh daawada xanaanada xoolaha markay intaas jeegarayaan ayaa waxay siinayaan warqadda aqoonsiga ee ninkaas inuu farmashiyahaas awood u leeyahay gato aqoonna u leeyahay udhiisa haddii controolkiisa la controlo uu la yimaado wax aan ku habboonayn anshaxa daawada xoolaha oo ama dawo dhacday uu keeno ama dawo qualitygooda hooseeya uu keeno waxaa guddigu wuxuu awood u leeyahay inuu kala noqdo ruqsadda marka shaqooyinkaa faraha badan bay qabtaan oo wax alla wixii khuseynaya iyo quality controlka veterinary drug quality control daawooyinka xanaanada xoolaha ee dalka imanaya oo dhan inay waata daawooyinka dalka imanaya sidee dabcan u control marka laga yimaado in farmasiyadii iyo goobihii lagu gadeeyay daawada ay tagaan runtii markii ay aeroboorada kale ay tahay ama dekedaha kale waxaa noo jooga shaqaalihii wasaaradda xanaanada xoolaha iyagaa marka horta controlaya wixii shaki ay ka qabaan waxay usoo gudbinayaan guddiga dhaqaatiirta dabeedna gudoomiyaha guddiga wuxuu u dirayaa guddiga dhaqaatiirta dawadii waa la controlaya visually baa loo controlaya weli ma aynan gaarin heer aynu quality drug laftigeeda intay laboratory la geeyo weli ma aynan gaarin lakin hadda insha allah sida hadda aan xogta aan la soconno quality control waa iman doona haddii lahayno wasaaradaha qaarkood oo xoolaha dawadoodii ay controlaan caafimaadku dawadooda si ay controlayaan marka waxa soo socda insha allah laakiin hadda guddiga visual aragti ahaanba wuxuu u fiiriyaa dawadan dawo sigiituma ka dalkeena inay tahay inaysan ahayn taasna guddiga waxaa weeye waa shaqooyinka wasaaradda uu qabtay waxaa sheegtay inay daawada controlkeeda iyo dhaqaatiirta la socodkooda dabcan iyaga laftooda ogaanshahooda xaaladahooda shaqo iyo dabcan professionkooda inay inta badan xooga saaraan ma intaas oo kaliya marka mas'uuliyaadka guddigu maya
dejinta siyaasadda caafimaadka xoolaha qayb bay ka yihiin oo guddigu waa part of qayb ka mid a wasaaradda xanaanada xoolaha wey ninka guddiga guddoomiyaha waa dhakhtar xoolaad xubnaha guddiga waa dhakhaatiir xoolaad marka shaqadii isagoo guddigii ka mid a ayaa dadka qaarkood waxay ka mid yihiin shaqaalihii wasaaradda xanaanada xoolaha marka wada shaqayn oo isugu kaya dhex jira dhammaantayo bay qabtaan oo shaqooyinka wasaaradda markaanu tiimo dirayno qayb bay ka yihiin inay tiimanka wax ka xulaan inay markii tiimanku ay shaqada aadaan ay shaqadooda si fiican ugu guteen dawooyin warbixinta ay soo qoreen inay sax tahay in kaleeto iyadana part of bay ka yihiin oo qayb ka mid waa tahay marka ma sanadkiiba xilli ma doorashadooda xilli may dhacdaa sidee maamulkeedu isu bedelaa wuxuu doorashadu waa 3 sano mar hadda sanadan 2017 January waa guddiga hadda shaqaynaya oo veterinary boardka baa la doortay waxay shaqaynayaan 3 sanood 3 sano kadib shibweena la qabanaya dadkii veterinary ahaa oo la ansixiyey oo ka diiwaan gashanaa guddiga dhakhaatiirta ka diiwaan gashanaa ayaa mar labaad la casumayaa waxay dooranayaan 3 xubnood oo awal hore u dooran jireen guddoomiyaha iyo 2 xubnood habka kala warqaadashada ururka dabcan haddii cudurro aan la garanayn ay waddanka soo galaan haddii daawooyin dhacay waddanka la keeno macluumaadadaas bulshadana ugu gudbisaan idinkuna u kala qaadataan waxaan u kala qaadanaa gobollada iyo degmooyinka waxaa noo jooga dhakhaatiir xanaanada xoolaha siduwayaal gobol baa jooga maamulayaal degmaa jooga tuulooyinka waxaa jooga niman la yidhaahdo daryeelayaasha caafimaadka xoolaha oo iyagu qudhoodu ka diiwaan gashan wasaaradda iyo guddiga labadaba ka diiwaan gashan xogta aanu ku helno cudurrada xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha ku hesho ayaa guddiga dhakhaatiirta u helaa cudur nin baa wuxuu noo joogaa example tuulo waxbuu arkayaa maamulaha degmada usoo gudbinayaa fooman baa jira aanu u qaybinay daryeelayaasha ilaa maamulo degmo ilaa isduwo gobol loo qaybshay foomkaasuu soo bixinayaa ama whatsappka buu noo soo raacinayaa ama email buu kusoo diraya marka xog laga wada socdo waxa weeye oo dhammaan waa qayb dhan unit dhan baa jira oo la yidhaahdo dabagalka cudurrada xoolaha maxaad nooga sheegi kartaa marka agaasime kiisaska ugu dambeeya diiwaan gelisaan oo waddanka dabcan haddii ahaan lahayd cudurro soo kordhay oo dabcan xoolaha ama lagu arkay ama dawooyin dhacay oo waddanka lasoo geliyey maxaa nooga sheegi kartaa cudurro soo kordhay hadda oo gaara ma jiraan abaar baa jirta xoolihii daciif bay noqdeen awoodooda waa yaraatay neef kasta wuxuu u nuglaanayaa wax kasta oo jira qoraxdii baa dhibaysa socodkii baa dhibaya wuxuu cuna ma hayo marka xilligan daras la oran karo xanuunkaasaa nagu soo gudbay ma jiro sababta waxa weeye waxaa jirta abaar baa jirta oo mataqaanaa xoolihii dhibaato haysta hadda geela waxaa la sheegayaa inuu geelii sii deynayo shuban dhiiga inuu sii deynayo neefkii geela wuxuu cunayaa geeda qalalan buu cunayaa xidmihii mindhicirkii wax gaarayaan shuban baa imanaya marka lama oran karayo waa cudur cusub oo nagu soo kordhay cid oran kadhaa ma jirto saa daraadeed xilligan hadda jira lama odorisi karayo maxaa la yidhahdaa cudur nagu soo kordhay lama odorisi karayo adeed wax caqabadaayo marka guddiga hortaagan shaqooyinkiisa ama xiliyadan adagoo hadda lagu jiro caqabado ku xeeran oo dabcan ay ka gudbila runtii guddigu waa waxa weeye waa baalasha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha waay marka caqabadaha guud oo dalka ka jira maaha caqabad guddiga hadda u gaara oo laleeyahay shaqadoodii waxaasay u gudan waayeen ma jirto oo dee xafiis waxay ku leeyihiin wasaaradda xanaanada xoolaha dhexdeeda wasaaraddii bay la shaqaynayaan iyagii baa wasaaraddii qayb ka ah marka carqalad wax guud oo dalka dee saameyntan guud ee dhaqaalaha dalka oo iska yar iyo dhibkaa jiro adduunka maahane wax gaar oo markan guddigu shaqadiisii la qabsan waayey ma jiro haddii hadda guddigu uu doonayo inuu aado gobollada iyo degmooyinka aado xilliga wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobollada iyo degmooyinka aadayso ayuu baarti ka mid noqonayaa ama guddiga laftiisa waa marmar waxaa la siiyaa budget la siiyaa waxay ku aadaan meeshay u baahan yihiin shaqada u baahan yihiin inay kusoo qabtaan waa tahay agaasime bal waxaa faahfaahin kooban naga siisaa sida howlaha daaweynta iyo tallaalka xooluhu ay hadda u socdaan iyo sida dhakhaatiirtu ay la socdaan marxaladaha xooluhu ay xilligan ku sugan yihiin maadaama xilli jiilaalo adag lagu jiro runtii wasaaradda xanaanada xoolaha iyo guddiga dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xooluhu muddo hadda laga joogo 19 bishan waxaanu dirnay 32 tiim waan u dirnay gobollada Puntland oo dhan haba ugu bataan gobolka Karkaar iyo Bari iyo Gaardifo oo tiimanka intooda badan aan u dirnay waayo de meeshii awal xooluhu ay jireen bay ahayd oo u tira badnaayo dadka ay u rarteen aad baa shaqadii u socotaa 10 bil baad shaqadii u socotaa qiyaasta guddiguna qayb buu ka ahaa diritaanka iyo la socodka iyo abaabulka hawsha lagu jiray waxaana loogu talagalay xilligan in la daweeyo 2 milyan oo neef ari xoolo ah
isku geeli ari lo dhamaan isku jira hawshaasi si fiican bay u socotaa kormeer baa lagu baxaa gudoomiyaha guddigu member buu ka yahay ragga kormeerka aadaya anugu member baan ka ahay xubno kaleeto guddiga way ku jiraan hadday tahay tiimamka iyo hadday tahay supervisorska ragga wareegaya labadaba waxaa baarti ka ah guddiga dhakhaatiirta xoolaha marka shaqadaas sida si fiican bay noogu socotaa muddo bilayna noo insha allah bay noo soconaysaa bishan 17 meelahaas ay diilayno ma jiraan gudoomiye ugu dambeyn agaasimaan idhaahde dabcan xoolihii baa hadda dhimanaya oo baktigooda meel walba yaala waxaan halisa in cudurro ay ka dhashaan oo dadka iyo xoolaha intooda kaleba ay saameeyaan sidoo kale roob ayaa la filayaa dhawaan inuu curto oo dabcan xooluhu markay jilaalka kasoo dahaan cudurro ayaa dhashay sida la sheego marka wax baaqoo aad bulshada u jeedinaysid oo la xiriira sidii dabcan looga digtoonaan lahaa cudurro cusub oo dhalan kara iyo saameynta baktiga xooluhu ay ku yeelan karaan caafimaadka dadka iyo xoolaha ma jiraan runtii markii xoolaha ay aada u leedeen xooluhu oo xoolo fara badan ay leedeen oo baktigii xooluhu meelba yaallo cid hadda laleeyahay ciddaasaa ku shaqo lehee waxaa ka qabata maahan waa wax dhammaan bulshada puntland saameyn ku leh maamulada degmooyinka maamulada gobolada wasaaradihii dowladdu gobolladii ka tirsan yihiin part of gobolada waaye marka waxaan ku boorinayaa gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka iyo dhakhaatiirta xoolaha inay wacyigelin dad kale ku wacyigeliyaan in xoolaha baktiyay ay u baahan yihiin in la asturo oo meel loo asteeyo oo lagu gubo sababto haddee roob baa da-aya insha allah haddii lahaydmo baktigii wuxuu soo raaci doona biyihii waxay soo mari doonaan baktigeedii xoolehey meeshka baktiyey difeeto dad iyo dunya labadaba waa keeni karta marka waxaan ku boorinaynaa ummadda oo dhan dhammaantood inaan cidna gaar looga dhigin ama degmooyinka sida dowladaha hoose iyo degmooyinka aan la oran shaqadiinii weeye qof walba xilkas oo meel maraya hadduu arka neef baktiyey inuu asturo oo mataqaana god yar intuu qodo uu ku rido oo dabeedna saas mataqaana marka ma dabcan la gubo oo siyaabo kale loo maray taas waa wax guud oo dhammaanteen xil naga saaraya hadda inaan ku eedeyn laakiin waxaan ku boorinaynaa reer miyiga reer magaalka dowladda wasaaradaha cid walba oo wax garanaysa in hawshaas fiiro gaara laga yeesho qof kasta oo hadda safar aada hadduu gaari la socdo wuxuu arkayaa xoolo baktiyo meel yaalla isagaa la rabaa inuu mataqaanaa intuu gaariga joojiyo uu asturo oo aaso ajar aakhirina waa ka helayaa mid adduunyana waa ka helayaa marka dhammaan inagoo dhan aniga dhammaantiin waxaan isku boorinaynaa ninkii neef baktiya arkay inuu neefka baktiyo asturo aad iyo aad baa mahadsanaysa waa tahay daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka uu kuurgal ee Puntland TV oo garow idinkaga imanaya toddobaadkan waxaan barnaamijka uga hadlaynaa shaqooyinka ay qabtaan ururka ama guddiga dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee Puntland oo ka tirsan ama qayb ka ah wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda Puntland waxaa hadda ila jooga Dr. Axmed Cabdulle Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga dhakhaatiirta xoolaha ee Puntland Dr. kusoo dhawow Puntland TV iyo barnaamijka uu kuurgal bal waxa faahfaahin kooban naga siisaa dhibaatooyinka guddigu uu xogaha ka hayo ee ka dhashan nadaafad darrada deegaanka gaar ahaanna xilligan oo nadaafad darro baahsani dabcan la sheegayo ama lagu soo warramayo inay deegaanka ka jirto maadaama xoolo badan ay baktiyayaan oo abaar daran ay jirto asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu Puntland TV aad buu mahadsan yahay imaatinka iyo maxaan ku raadayay hawshan baaxadda leh oo bulshada loo jeedinayo inay ka qayb qaataan haddaan su-aasheeda marka u noqdo anuu magacayga waxa uu sheegay wariyaha bari sheegay waxa weeye gudoomiyaha guddiga dhakhaatiirta ee Puntland nadaafad xumada waxaan ognahay deegaanku waa meesha dadka iyo xooluhu labadaba ku nool yihiin weeye wuxuuna u baahan yahay mar kasta ilaalin iyo hagaajin buu u baahan yahay waxaa xusid mudan in waqtigan hadda ay abaar baahsan ay dhacday xoolo badan ay dhinteen xoolihii marka wixii haray in marka meelihii roobabka ahaa la geeyey oo loo hayaamayey si ay uga helaan baad iyo biyo taasoo marka waxay keentay muddadii safarka lagu jiray in xoolo badan deegaamada ay ku daataan iyo kuwa ay joogeen ku baktiyaanin marka deegaankii marka waxaa ka muuqda in nadaafad xumo halis ay jidho waa marka dhibaatooyin ka dhalan kara waxaa ka mid ah qofku inuu ku noolaan karin meeshii oo xoolihii ay ku bateen oo qurun ay tahay oo cudurro uu xataa urkii maarata ka qaadi karo waxaa dhici kara cudurro kale oo iyagana ka dhalan kara maxaan ku rahdaay xoolihii meeshii qaarkood inay jiraan baa dhici kara maarta oo iyagana taas cudurro ay ka dhalan karaan marka waxa weeye waa arrin halisa weeye deegaanka marka hagaajintiisa si marka dhibaatada loo gudbo waqtiga hadda maanta taagan waxaanu anagu guddi ahaan aan ku wargelinaynaa dadka ama magaalo ha joogeen ama baadi ha joogeen in nadaafadda deegaanku laga maarmaan ay tahay
marka in walba xil iska saaro oo nadaafada xoolihii si arrintaa looga hortago in la ururiyo meel lagu ururiyo oo la xabaalo oo la gubo ama la gubo oo la xabaalo ama maxaan ku idhahdaay maxaan ku idhahdaa ama si deegaanka nadaafad u noqdo sababtoo ah haddii deegaanka marka uu xoolaha lagu sii daayo oo saa u noqdo oo roob u yimaado waxaa dhici karta khatar cudurha oo shubanka uu ka mid yahay inuu ka yimaado sababto waxa biyo waxay raacayaan kanaalada barkadaha waxay raacayaan meelaha xurfadaha hadhowna qofkii markuu cabo si sahla cuduradii xataa kalooriga baa ka iman kara marka waxa weeye nadaafadda hagaajinteeda deegaanku waa arrin muqadasa weeye waxyaabaha hadda aanu dadka rabno bulshadu inay xil iska saadho bay ka mid tahay arrintaas gudoomiye waa xustay in xanuuno ay dhalan karaan shubanbiyoodku ka mid yahay marka biyuhu ay qaadaan dabcan waqtiga oo ku shubaan arrintan hadda aan samayn oo baa ka mid ah macna dadka in looga dego sababta waxa weeye mar haddii deegaankii saa noqday biyaha la isticmaalaya roobka markuu yimaado anagu waxaanu kula talinaa dadka in laga taxadaro oo biyaha aan toos loo cabinba hadduu kaloriin heli karo iyo hadduu karkarin heli karo diyaargarow xaggiina ma jiraan marka arrintaas aad ka gashaan anagu diyaargaraynta wacyigelin wey dadka inaan bulshada u sheegno ka hor intaan arrintaan u dhicin waa waxyaabaha nadaafadda aan uga hadlayno wey deegaanka in nadaafadiisa ay tahay wax laga maarmaana biyahaasuna haddii roob yimaado uu khatar keeni karo waxaan marka hadda u sheegaynaa dadku inay xil iska saaraan in waqtiga soo socda haddii roob ilaahay keeno inayna biyaha toos u cabin biyaha ama iskarkarkayane ama meel chlorine le maartay oo antigerms maartay waana qudhayadu xil waa iska saarayna wasaaraddu haddii arrimahaas dadka marka hore wacyigelinta aan u sheegno si dadku u doonto aniguna waa dabagelinaya meesha maartay arrinta wax ka yimaadaaneen oo dib laakiin hadda waxaan rabnaa bulshada oo dhan inay la socoto nadaafad xumada deegaanka ka jira in waxa laga hortegi karaa oo keliya in laga taxadaro oo biyaha aan toos loo cabin ma fududa laakiin gudoomiye malaayiinta reer xoolo dhaqatada u badan in la kontrolo biyaha ay cabayaan hadda maya laakiin anigu inaan sheegto way intay gaari ka dhorto marka hore adigu inaan sheegto way inay gaari ka dho halistaas ay tahay halis muuqata waqtiga roobka soo socdan hadeer inagoo aan baktiba xataa aanan mataqaana ku talagelin oo waqtiyada qaarkood oo xilliyada xataa aan abaari jirin baa waxaa dhacda kanaalada dadku inay aadaaba ku saxaroodaan meelaha maarata banaanka taas waa waxyaabaha marka keena calool xanuunka oo nadaafad xumada maarata ay ka mid tahay marka had iyo jeer wacyigelintaanu inay joogto noqoto oo bulshada loo sheego biyaha aan laga taxadarin isticmaalkoodu in halis ka iman karo waa mahadsan tahay gudoomiye bal waxaa sharaxaad kooban ka bixisaa ahmiyadda dhaqashada xoolaha ee dabcan Soomaaliya ay hodanka ku tahay oo lafdhabartana u ah wax soo saarka dalka iyo siyaabaha ay tahay bulshadu inay dabcan ugu baraarugsanaadaan waxtarka xoolaha ilaalinta caafimaadkooda iyo sida ay muhiimka ugu yihiin noloshan بسم الله رقشة حولها وحين سوماليdu la yiraahdaa had jeer oo iska caam noqotay in xooluhu ay lafdhabarta dhaqaalaha dalka ee dadka noloshoodu ay ku xiran tahay si dadban iyo si toos ah labadaba macna dadka dhaqada iyo dadka kale oo bulshada ku nool hatta maamulka dawladda waxay meelaha yaani laga helo mataqaanaa dakhliga oo maamulka dawladda waxa weeye waa xoolaha way meel kale ma sida darteed laakiin inagu habka aynu maanta xoolaha ku dhaqano xoolo dhaqasho ma aha waa xoolo raacata inaguna habku waa maqay ama caafimaad ha noqoto ama daaqi ha noqoto deegaanka waa baabaasan yahay waxa ku dhacay xaalf baa ku dhacay maxaan ku raadayay dadkii kama fakarayaan xoolaha sida bini aadanka oo adduunka laga dhaqmo waxa weeye xoolaha waa laga fikiraa marka hore waxa weeye xoolaha waxa loo dhaqdaa laba qaab in aan aad ka hesho ama hilib ka hesho inuu midna ma iska daba joognaa dhaqankii aynu Soomaalidu yaani hore oo maartay waxa kale oo jira abaara hadda waxa aan noqday abaara soo noqnoqday waxaas waxay u baahan yihiin marka waxa weeye in xoolihii dib loogu noqdo oo aqoonta caalamka jidha dib loo habayo oo dadka xooluhu ay noqdaan kuwa inagana waxayna tara iyagana si fiican u noolaan kara arrinta marka waxa weeye arrin aanu hadda qorshaha wasaaraddan ugu jira anaga noogu jira in dadkii qaabkii wax laga bedelo oo yaani barnaamijyo la abuuro oo caalamka lala kaashado maartay sidii loo heli lahaa xoolo waxtar leh kuna noolaan kara deegaanka sababta waxa weeye hadeer xaaluf baa ka jira waa in marka cawskii habkii loo heli lahaa biyihii qof xooluhu ku noolaan lahayn ku dadku waxaasoo dhan barnaamij dhan bay u baahan yihiin oo wax laga qabto si loo helo xoolo tayo leh
oo dadku mataqaanaa noloshiisa kafaalo qaadi ma daraasaysaan marka barnaamijyadaas oo dabcan sida ugu muhiimsan ee dadka looga weecin karo dariiqan ah inay xoolo raacato uun ay ku ekaadaan dabcan in beeraley laga dhigo in qaarkood xoolaha qaabka uga faa'iideysan lahaayeen dabcan maalgashi uga samaysan lahaayeen la fahamsiiyo dadka xoolo dhaqatada ah barnaamijyada ma daraasadaysaan oo ma qorshaysaan siyaabaha dabcan loo wajihi karo ha dabcan anagu hadeer horta anigu guddigan cusub guddiga waan ku cusub yahay laakiin markii la arkay soo noqoshada abaaraha iyo dhibaatooyinka xoolaha haysta fakir yani arrin baa barnaamij baan hadda aan ku talagalay inaan dowladii cid kasta la kaashano ama Soomaaliya ka jira hadda dareen weyn baa jira in la helo barnaamij xoolaha wax laga qabanayo oo noocan la yiraahdo resiliency of the roads habka yani xoolaha maartay adkeysiga oo barnaamij la sameeyo dadkii ay awood u heli karaan inay xoolihii habay kaga gudbaan abaaraha oo kale waxtar u yeeshaan laakiin hadda anaga hadda barnaamijkii maskaxda waa naga jira waan qorsheysay inaan arrintaas hadda ka bacdi lagu dhaqaaqo laakiin wali ma aanan yani mid wali balowday ma aha laakiin markii soo noqdeen abaarihii markii dhibaatooyin badan la arkay in habka aynu marka hore xoolaha ku dhaqano inuu khaldan yahay oo aanu ku noolaan karin baa muuqata marka inaynu kolley sida dadka gaari mayno laakiin hadda ka hor Soomaaliya markii oo dawladda hore ay jiday waxa la abuuray jawi ah in dadkii yani qayb la dejo xataa xoolihii maarta oo laga dhigo agropastoral xoolihii iyo beerihii isku jira la balaabay waagi hore laakiin hadda wixii waa burbureen xoolihii ma qofka uu labadaba ka heli karo meelaha waliba ay ku habboon tahay inuu waxna ka beeran karo xoolana ku dhaqan karo marka waxa weeye laakiin inuu maxaynu u baahnaa waa pastoral weeye dhulkeen waa Graceland yani badi u baahan xooluhu ku dhaqmaan waxaa la rabaa marka habkii hore ee la isticmaali jiray in la helo oo ahaa maxay in daaqii dhulka ku habboonaa seereeyo kale xilliyada xilli seereeyo la sameeyo deegaankii xilli seeraadkii la ilaaliyo si waqtiyada ku habboon xilligaas loo isticmaalo oo hadda nidaamkan ah meel walba deg oo waxa doonta ku sameey xooli kuma socon karaan barnaamijkaas marka isla arrinta aan su'aalka weydiiyay saameynta dabcan dhibaatooyinka loo geysto deegaanku wuxuu saameyn ku leeyahay dhaqashada xoolaha iyo jiritaanka kullaha way deegaanka xaaluf baa ka dhacay waxa mesela dhibaatooyinka dhacay waxa kamid ah in meel walba la iska degay meel ku habboon deegaan iyo meel aan ku habboonayn waxa kaloo jira in meelihii caws ka bixi jireen dad gaar inay xirmaysteen oo xoolihii ay waayeen meelihii maartay wax ka bixi jireen inay mataqaan caws ka helaan marka dhibaato badan baa ka jira deegaanka oo xoolaha saameynaysa way marka waa in dawladdu iyo dadka aqoon-yahanada hadda waxaa loo baahan yahay waxaan u malaynayaa insha Allah haddii mustaqbalka dareen baa dadkii galay in sidaan aan waxba ku socon karin laakiin in la helo qaab xoolihii lagaga faa'iideysan karo insha Allah barnaamijkaas anigu hadda shaqada waa ku cusubnahay laakiin dawladduna arrinta dareenka waa wadaa in la helo dadka aqoon-yahanada iyo dadka kale oo ku biirin kara inay dhaqaalaha inay macnaa ina ka taageeraan habkii dhaqashada xoolaha loo hagaajin lahaa barnaamijkaas in la balaabo insha Allah waanu hadda guddigaygu insha Allah wasaaradda anagoo la kaashanayna in wax la qoro oo dadkii maartay habkaas yani dhibaatooyinka abaaraha ka iman kara laga hortagi lahaa qayb qaadan waana jiraan in mashaariic hadda arrintaas ka qayb qaadanaysa sidii xoolihii loo tayeyn lahaa oo maartay wax looga qaban lahaa oo dadka loo wacyigelin lahaa maalan dadka xoolaha dhaqatada wacyigelin waxay u baahan yihiin aqoon gaar ama tababaro la siiyo nooca wacyigelin ee la siin halka gudoomiye marka nooca wacyigelin ee la siin karo waa noocee dadka xoolo dhaqatada dabcan inay dhul badan ku baahsan yihiin baa jirta in dabcan aan aysan suurtagal ahayn in siyaabo fudud loo wacyigeliyo marka sidee ugu fudud baad qorshayseen guddigeena oo wacyigelinaha loo baahan yahay oo muhiimka waa loo gaarsiin karaa xoolo dhaqatada wacyigelinta waxaa loo baahan yahay way badan tahay horta noocyo kale leedahay waxa weeye aqoonta dadka la siinayo dadka ganacsatada qudhooda iyo dadka xoolaha dhaqda iyo kuwa mataqaanaa iyaguna ganacsatada dhexa kulliba heerar bay kala leeyihin waxa ugu fiican waxa weeye maanta in meediyaha la isticmaalo intaas ayaan kusoo gabagabeynaya daawadayaal barnaamijka uu kurgale Puntland TV oo toddobaadkan aan idiin soo jeedinayo anigu ah Maxamed Maxamed Xaliye waxaanu barnaamijka toddobaadkan uga hadlaynay ama ba sida daawataan aanu diiradda ku saaray shaqooyinka ay qabtaan guddiga dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee Puntland oo fadhigoodu yahay Garowe qaybna ka ah wasaaradda xanaanada xoolaha ee dawladda Puntland waxaana barnaamijka igala qayb galay oo marti noogu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha sidoo kalena guddiga xubinka ah iyo gudoomiyaha guddiga xanaanada xoolaha ee caafimaadka xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha oo markaasi lagu magacaabo Dr. Axmed Cabdalle Maxamed dhamaantood aad ayaan uga mahadcelinayaa ka qaybgalka barnaamijka iyo siday damacno la falanqeeyeen mawduucan barnaamijka uga hadlaynay
dhinaca kaamirada barnaamijkuna waa cabdiqani bardac alxajiin aad iyo aad baa umahadsantahay gudoomiye intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka kan mid lamida intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo